السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ميل والبو جوجتانبه waxaan rabaa inaan ka hadlo xanuunkan dilaaga ee coronavirus amba caabuq. xanuunkan sidiisaba dunidii maanta wuxuu ku hayaa halis aad u weyn. wax dawo ah oo ilaa hadda loo hayo ma jiro. dawadiisina weli hadda waxa weeye waa lagu guda jiraa oo waqti ayay qaadanaysaa sida ay khubaraduba sheegeen, laakiin si xawliya ayuu xanuunkan u faafayaa. meel haba yaraatee hadda dunidan aynu ku nool nahay aanan laga soo sheegin ma jirto. haddadan aan idinla hadlayo life update haddaan xoogaa idinka siiyo, waxa uu marayaa adduunka 922,956 case weeyaan. waa inta la testgareeyay ee hadda la hayo cases ahaan. waxaa ku geeriyootay 46,290. waa tiro badan, laakiin mar walba yaynaan ka eegin dhinaca maad aragtay dhimashada, waayo dhimashadu waa xaq. nin walbana waa geeriyoonaya maalinkay tiisu gaadho, laakiin waxaa wanaagsan inaanu dhinaca kale ee bishaaradana aanu ka eegno. waxaa xanuunkan ka soo kamay waxa weeye 193,405. waa tiro aad u badan, waa tiro aad u badan oo xaqiiqdii in lagu farxa ah. taasina rajo badan muujinaysa weeye, waayo diinteenuba waxayna faraysaa inaynu ku noolaano baynul khawf wa raja, inaynu ku noolaano. xanuunkan China ka bilaabmay sidaynu ogsoonnahayba, laakiin hadda China waa la dhaafay. China waa la dhaafay, xitaa kiiska isaga ka imanaya waa kiis aad u yar. hadda waxaa ugu horeeya adduunka waxa weeyaan waa Maraykanka oo isagu 208,000 maraya. maanta oo qura 19,499 case ayaa la rejistareeyay. haddaba ha u soo laamo dalkayga hooyo ee jamhuuriyadda Jabuuti. dalkayga hooyo hadda life update-kani waxa uu sheegay, inkastoo aan ognahay waxa weeye waxaa la testgareeyay dalkayga hooyo jamhuuriyadda Jabuuti 1,030 test ayaa la sameeyay. waa tiro aad u badan xaqiiqdii. marka aad eegtid nacam ummadda populationka dalkeenu inta uu leeyahay iyo saa aynu u testgarayna testigan la sameeyay sida inta ay tahay, xaqiiqdii waxa weeye dowladdu wax wanaagsan ayay sameynaysaa. si xawliya ayay ku socotaa maadaama 1,030 qof ay testgaraysay. xaqiiqdii waa si xawliya waxay u socdaan marka loo eego populationka aynu nahay annaga. iyo dee xaqiiqdii qalabkana marka la eego, waayo qalab badan ma haysano oo waanu isku ogsoonay. dowladihii naga waaweynaabaa ilaa hadda dalbanaya qalabka lagu testgaraysa. ingiriiska oo kale intaasoo milyan buu dalbanayaa qalab, ma ogtahay? kolka xaqiiqdii annaga oo qalab saasa aanan haysan, haddii aynu testgaraynay 1,030, xaqiiqdii shaqo weyn ayay sameeyeen takhaatiirta waddankeenu. waxaa laga helay 30 qof. tiradaasi xaqiiqdii marka la eego qaaradda Afrika, annaga markaan noo eego waxaanu ku jirnaa xaqiiqdii kuwa sarsare ayaynu ku jirnaa. waa marka qaaradda Afrika aynu ka hadalno, waayo 30 marka. laakiin inkastoo ay tahay 30 la xakamayn karo, sayna noo sheegeen maaragtay dakhaatiirteenu ku guda jiraan maaragtay in dadkaasi meelahay mareen, dadkay la kulmeen maaragtay dhammaanba la daba socdo oo lagu guda jiro. xaqiiqdii waa shaqo wanaagsan ayay qabteen maaragtay dakhaatiirtu. aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin taas. kolka life update-kani xitaa dalkeenna wuxuu sheegayaa, waa taas wuxuu sheegaya. kolka anigu waxaan u arkaa xaqiiqdii macahayd positive way oo waxa weeyaan qofka waxa weeye had iyo jeer
qofka bini aadamka waxaa loo baahan yahay inuu wax walba ka eego dhinaca wanaagsan uusan had iyo jeer ku ordin inuu dhinaca maaragtay xun waayo marka dhinaca wanaagga aad wax ka eegtid dhinaca xumaantana waad sixi kartaa waayo horta wanaagga ee qofkan wanaagga meesha jira waa inaad eegtaa horta dabadeed waxaad sixi kartaa wixii kale ee maaragtay ka dhiman meesha kolkaa anu waxaan leeyahay horta dhakhaatiirtu shaqo wanaagsan bay hayaan si wanaagsan way u socotaa hawshu aad iyo aad ayaa maaragtay loogu mashquulsan yahay hawsha mid tan labaad waxa weeye dabcan dad badan waxay isweydiinayaan dowladdu saan ogsoonnahayba waxay fulinaysaa qawaaniintii kasoo fulay hay-adda WHO-ga talooyinkii iyo maaragtay ay soo jeediyeen ayay fulinaysaa dadkii waa isxereeyeen oo dowladda isxereeya ku tiri way isxereeyeen guryahoogay joogaan intooda badan way ka jawaabeen dad badan waxay isleeyihiin okay dadkaa isxereeyey dad badan oo waxba haysan ayaa jira dabcan taa waan ognahay anigu barnaamij horena waan ka hadlay si cadna waan uga hadlay dowladdana waan u sheegay dadkaas inay u baahan yihiin in la gacan qabto waayo ubad waxaa jira aansan iyagu garanayn xanuun baa jira hooya waxbay soo weyday aabba waxbuu waayey aanan midna garanay iyagu ilaa caloosha loo buuxiye mooye ubadkaasna waxay la mid yihiin ubadka kale dadka waxhaysta unbay la mid yihiin waayo ubadkuwaas nin walba oo wax dhalana taas waa dareemaya taas waan ka hadlay bay ahayd laakiin maanta bishaarada aniga aan maqlay xaqiiqdii aan aad iyo aad maaragtay si wanaagsan aan usoo dhaweynay waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay bay ahayd case in maaragtay ummadda maaragtay loogu gargaarayo oo maaragtay lagu shubayo lacago si ummadda iyo wixii qalab ay u baahan yihiin caafimaadku loogu gado oo maaragtay wax loogu qabto sanduuqa saan maqlayay 1 milyaar ayaa lagu shubay oo maaragtay lacagta Jabuutiya ay dowladda ku shubtay waxaan aniga xaqiiqdii dowladda horta waa waajib iyada saaran inay ummaddan maaragtay ayadu ay ka mas-uulka tahay ay qorshe u samayso cad oo maaragtay ku gacan qabanayso oo ummadda qalbigooda ugu dejinayso xareysan taas waa waajib iyada saaran ma aha maaragtay mid lagu baryayo oo la dhahayo waxa sameeya maaha laakiin waa waajib iyada saaran waana waajib ay u dhaaratay weeye taas weeye ta kale waxaan aniga aad iyo aad aan usoo dhaweynayaa kambaniyada waddanka ka howlgala ambase bacamushirada waddanka oo xaqiiqdii ayaguna si wanaagsan isku taagay oo ummadooda maaragtay u fidiyey maaragtay gargaar ururka maaragtay sojiig qaadka asagu xaqiiqdii lacag ilaa 100 milyan oo dalka jamhuuriyadda Jabuuti ayuu ugu deeqay keeskaas si ummadda walaalahooda loogu gargaaray ee danyarta ah wuxuuna xitaa ballan qaaday xitaa haddii ziyaado loo baahdo dadkoogaas dhibban diyaar ayay u yihiin inay maaragtay waxay hayaanba ee miiska soo saaran si ummadoodaas maaragtay loo badbaadiyo oo maaragtay waxay ku noolaadaan muddooda ay ku jiraan guryaha maaragtay ay la siin doono xaqiiqdii waa bishaaro wanaagsan waana waxaan soo dhaweynayno xaqiiqdii kambaniyada kale ka mid ah waa Noel Group oo iyagu 50 milyan ku deeqay waxaa kale oo ka mid ah maaragtay maxay ahayd Kamash oo 5 milyan isagu ku deeqay waxaa ka mid oo kale Kubaysh oo 20 milyan ku deeqay xaqiiqdii ururo badan ayaa iyaguna maaragtay sida banka la yiraahdo maaragtay BCE-da MR oo 5 milyan iyo wax la jira ku deeqay isagu waa wax lagu farxo xaqiiqdii in maanta ummadda la isgarab taago oo maaragtay dadka loo muujiyo wanaag iyo maaragtay kalgacal maaragtay dadka reer Jabuuti inay isku muujiyaan xaqiiqdii waa wax
aad iyo aad loogu baahan yahay waqti marka uu waqtigu adag yahay waqtigan oo kale waa waqtiga la kala ogaado maaragtay ummadda iyo waxqabadkooga waa waqtiga la kala ogaado xaqiiqdii iyo waxaad arkaysaa dadkii reer Jabuuti ayaga laftigooga oo iyaga dhexdoodii maad aragtay xaqiiqdii isgargaaraya oo darisku dariska kale maaragtay waxa uu ku dhaamo uu maaragtay uu geynayo taasna waa tiina nagu ogaa haddaynu reer Jabuuti nahay weligeedna taas aynu kusoo barbaarnay markay xitaa anagu makaan yarayn waanu soconaynay dariskaas aanu ayaata cidna odhanaysa may jirin bariiska saaxiibkeen baan iskala soo isagu gurigu iska imanaya nacam dadku waa saasay isku dhex socdeen moogtahay taasna waxay tilmaamaysaa dadka reer Jabuuti maaragtay naxariista iyo maaragtay kalgacalka ay isku qabaan waa wax aad iyo aad loogu farxo oo ay tahay had iyo jeer mar walba wanaagga in la tilmaamo ayaa wanaagsan wixii dhaliilana dee way wanaagsan tahay in la tilmaamo laakiinse si cilmiyeysan oo maaragtay xikmadaysan in loo tilmaamo ayaa wanaagsan ayadoona cidna la aflagaadeen cidna nasabkiisa iyo maaragtay sharaftiisa iyo karaamadiisa aanan meel lagaga dhicin ayaa wanaagsan nin kasta oo muwaadanana xaq ayuu u leeyahay inuu ka hadlo ambase uu maaragtay fikirkiisa ka dhiibto laakiin waxaa wanaagsan saan soo sheegayba si cilmiyeysan in maaragtay wax marka la sheegayo loo sheego oo ummaduna maaragtay ay ka faa'iidaystaan waxa aad leedahay oo maaragtay amba aad tilmaamaysid aad rabtid inaad hagaajisid taasi waa taas oo xaqiiqdii waa wax aad loogu farxo aniga xaqiiqdii maaragtay farax gelisay wey waxaan rabaa oo kale maaragtay dadkayga reer Jabuuti ina ayaga laftigoogana aan u soo jiidiyo baaq ah in waxa wanaagsan maaragtay ayaguna ay maqlaan talooyinka ka yimid maaragtay hay-adda caafimaadka adduunka ee ah in maaragtay guryaha lagu ekaado ilaa wax muhiim oo daruuriyaada mooye wixii kale in dadku ay guryahooga ay ku ekaadaan si xanuunka loo xakameeyo waddankan aynu ku noolnay Ingiriiska way ku adagtay waayo dadkani waa dad bartay maaragtay isdhexgal iyo meelo ay iskugu yimaadiin iyo baartiye ay qabsadaan iyo waxyaalo badan maaragtay laakiin way ku adkaatay arrinkan laakiin waxa weeye waxay qaateen taladii dhakhaatiirtay qaateen waayo dadkani ma ogtahay caddaanka intooda badan marka aad fiirisid ayagu waxay ka dhaqaaqaan maaragtay waxa reason la yidhaahdo wax haddaa waxa aad siisi wax cad oo maaragtay aad u sheegtid ay ku qancaan sideeday u qaadanayaan ayagu waayo waana qancisay ku leeyihin waayo waxaa lagu yidhi caafimaadkiina wuxuu ku jira inaad guryihiina ku ekaataan ilaa wax daruuriyaada mooye guryahoogay ku eegin si maaragtay maalinkii dhowey barnaamijkii yaraa aan soo duubay London aan dhex socday wadooyinkii ugu saxmadda badnaa ayaa faaruq ahaa kolka taasi waxay tilmaamaysaa si ay uga jawaabeen baaqa dalkayga hooye ummadeydana waxaan arkayay in iyaguna xaqiiqdii ay ka jawaabeen maaragtay baaqaas intooda badan guryahooga ay ku ekaadeen si maaragtay xanuunkan ay loo xakameeyo waxaan rabaa halkan inaan u mahadnaqo maaragtay ummadayda yar iyo weyn rag iyo dumar cirooliya caananuug intoodaba inaan u mahadnaqo sida wanaagsan maaragtay ay uga jawaabeen baaqa ka soo yeedhay dowladooda waxaan kaloo rabaa inaan u mahadnaqo dhakhaatiirta ayagu ku hawlan xaqiiqdii maaragtay xakameyntan xanuunkan oo ayagu xaqiiqdii maaragtay la tacaalayo maaragtay xanuunkan frontline-ka joogo iyagana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa hay-adaha ammaanka ee dalka sida booliiska jendaaranka militeerka gaar republikeega dhammaantoodba ayagana waan u mahadnaqayaa siday amniga waddanka u sugayaan eena u fulinayaan maaragtay awaamiirta ka soo baxday dowladda sida loo xakameeyo xanuunkan hadduu alla yidhaahdo wixii update amba soo kordhana insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waa idinla socodsiin doona waana idinla wadaagayaa hadduu alla yidhaahdo waa walaalkiin cali casoowe oo idinle saas iyo nabadgelyo